asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu idil ahaantiin baa shaarta hawada naga daalacanaysaay halkani waa mareeg media waa habeennimaha sabtiha ay soo gelayso axad taariikhduna waxa ay dul hoganaysaa 2021 bishii saddexaad toddobadeeda wararkeena ugu door karoon caawa idinku haynana waxaa ka mid ah isku day golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku sameeyeen inay joojiyaan dagaalka ka socda gobolkaasi Tigrayga oo la sheegay inay ku guuldareysteen isku shaandhayn lagu sameeyay golaha wasiirada iyo mas'uuliyiin sarsare oo dowlad deegaanka Soomaalida ee dalkaas Itoobiya ciidamada Suudaan oo sheegay inay gacanta ku dhigeen dhowr magaalo oo hoostaga deegaanka Barkhad madaxweynaha dalka Masar oo booqasho gaaban ku joogay gudaha dalkaasi Suudaan oo la sheegay inuu hadda dib uga duulay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo ka warbixiyay sidii wax u dhacay weerarkii dhawaan loo geystay magaalada Boosaaso qodobadaas iyo qodobo kale oo dheeraad ah ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan haddii ay baraali ka noqdo aan ku bilaabay sidaan hore idinku sheegay isku day ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku doonayeen inay ku soo saaraan qaraar ay kaga digayaan ama ay ku baaqayaan in la joojiyo dagaalka ama howlgalka ka socda dalkaasi Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigrayga oo la sheegayo inuu fashilmay kadib markii ay diideen dalka Shiinaha iyo dalka Ruushka inay arrintaasi u codeeyaan ayaa la sheegayaa in qaramada midoobay ay la laabatay codsigeedii ama oraahdeedii ahayd in la joojiyo dagaalka ka socda deegaanka ama gobolkaasi Tigrayga diblomaasiyiin ka tirsan qaramada midoobay oo sheegay in Ireland ay soo diyaarisay qaraarka go'aanka lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka ka socda deegaankaasi gobolkaasi Tigrayga ayaa la sheegayaa qoraalkani inuu ahaa qobyo qoraal aan dhameystiran bayaankani oo ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu xusay in 4 bilood ee u dambeysay ay ku doonayeen shirar ay ku raadinayeen in la joojiyo dagaalka ka socda gobolkaasi Tigrayga ayaa maanta soo gabagaboobay waxaana la sheegayaa in halkaasi uu ku dhamaaday shirkaasi guuldaro kadib markii dalka Shiinaha iyo Ruushka ay diideen in ay u codeeyaan in dagaalka halkaasi ka socda ee dowladda federaalka Itoobiya gobolkaasi ka wado in la joojiyo dhawaan bay ahayd markii dowladda Itoobiya ay weerar ku qaaday maamulkii deegaankaasi ama gobolkaasi Tigrayga kadibna ay ka saareen intooda badan magaalooyinka ay dowladda federaalka gacanta ku dhigtay balse jabhadda TPLF ayaan weli quusanin oo ku sugan agagaarka magaalooyinka iyagoo mar walba isku dayay inay arbishaan ciidamada qaranka ee Itoobiya halkaasi ku sugan walow la sheegayo dowladda Itoobiya inay garab ka helayso ciidamada Eritrea oo dariska ah dalka Mareykanka aan baahayd markii shalay uu qabtay 72 saacadood ciidamada Eritrea inay bataatanba ka baxaan dalkaasi Itoobiya kuna laabtaan goobihii iyo dalkooda ay ka yimideen sidoo kale ciidamada Suudaan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dhowr tuulo oo hoostaga deegaanka Barkhad ee dhulbeereedka Alfashaqa ciidamada Suudaan ayaa sheegay inay jabiyeen militariga Itoobiya iyo maleeshiyaadka halkaasi ka soo duulay oo isku dayay inay iska caabiyaan ciidamada Suudaan ee isku dayay inay gacanta ku soo dhigaan gobolada ama deegaanada kaga maqan dalkaasi Itoobiya maanta oo sabta waxa dagaalku ka socdaa bariga Altajar halkaasi oo la sheegay inuu khasaaro weyn ka dhashay waxa sidoo kale la sheegay dagaalkaasi inuu yahay dagaal xoog leh oo u dhaceeya ciidamada militariga Itoobiya iyo kuwa Suudaan waxa sidoo kale halkaasi aanan xaqiijin karin dagaalkaasi khasaaraha iyo dhimashada ka dhalatay halkaasi balse waxa la xaqiijiyay in dagaalkaasi halkaasi uu ka socdo si toos ah waqtigan xaaliga uga socdo labada dhinac ee ku dagaalamaya halkaasi ayaan midna saxaafadda la hadlin warbixina ka soo saarin dagaalka halkaasi ka socdo balse beesha caalamka ayaa walaac ka muujinaysa dagaalka u dhaxeeya dalka Itoobiya iyo dalkaasi Suudaan dhanka kale madaxweynaha dalkaasi Masar Cabdulfataax Asiisi ayaa booqasho maanta ku gaadhay dalkaasi Suudaan waxa sidoo kale uu la kulmay dhigiisa halkaasi uu kula shuray xarunta qasriga ee caasimadda Khartoum waxa uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Masar war-saxaafadeed uu siiyay idaacadaha in Suudaan ay uu kala hadlayay arrimaha la xiriira colaadda la xiriira Itoobiya iyo Suudaan waxa sidoo kale uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Masar in ay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan nabadda dalka Itoobiya iyo Suudaan
waxaa sidoo kale uu sheegay arrinta la xidhiidha biyo xidheenka inaysan qusaynin keliya suudaan ay qusayso dalka masar iyo dalal badan oo kale. madaxweynaha ayaa la sheegay in ay falanqeeyeen sidii ay xal waara uga gaari lahaayeen colaadda halkaasi ka horeysa ee u dhexeysa dowladda suudaan iyo dalka ethoobiya. madaxweynaha masar cabdifataax ayaa ku laabtay caasimadda dalkaasi masar ee qaahira, waxaana la filayaa in uu mar kale saxaafadda ka soo muuqdo lana wadaago booqashadiisii uu ku tegay dalkaasi suudaan. waxaa sidoo kale aan la yareysan karin dagaalka u dhexeeya ethoobiya iyo suudaan, balse wadamada dariskii waxa ay la socdaan oo ay sheegayaan ama dadka siyaasadda ku takhasusay markii ay ka hadlayaan arrimaha colaadda la xidhiidha dalka suudaan iyo ethoobiya in dowladda ethoobiya ay ka cagajiideyso in dagaal foodka fooda ay la gasho dalkaasi suudaan. maalmihii lasoo dhaafay waxaa la xaqiijiyey dowladda suudaani diyaaradaheeda dagaalka inay dul marayeen deegaanada gobolka axmaarada sida magaalada gondar. dhanka iyo maamulka dowlad deegaanka soomaalida haddii aan u leexano, saaka waxaa la sheegaya halkaasi in mas-uuliyiin badan ay xilkooda ku waayeen. mas-uuliyiin cusub oon horey deegaanka uga sii shaqaynayninna ay ka heleen jagooyin cusub oo ay ku hogaamiyaan deegaanka soomaalida. waxaa la sheegaya halkaasi 17 xubnood ama mas-uul oo intooda badani wasiir ku-xigeen ahaa in xilkii laga xayuubiyey. waxaa sidoo kale loo magacaabay dad cusub ama mas-uuliyiin cusub oo jagooyinkaasi ku matali doona deegaankaasi. madaxweynaha ayaa socdaal ku maraya mustafa maxamed cumar deegaanka ama gobolka jarar, isagoo sheegay inuu yahay socdaalkiisani mid la xidhiidha kambeynka ama ololaha doorashada ka dhici doonta dalkaasi Itoobiya. xisbiga gacanta ku haya deegaanka soomaalida ayaa waxaa tartan doorasho kula jira dhowr xisbi oo kale. waxaa sidoo kale u cadcad ururka ONLF oo la rajeynayo inay qayb ka noqdaan doorashada ka dhici doonta dalkaasi Itoobiya. madaxweynaha mustafa maxamed cumar ayaa sheegay in mas-uuliyiin iyo xubno uu u magacaabay deegaanada hoose sida degmooyinka halkaasi oo la rabo inay ka ololayaan ama u ololayaan doorashada xisbiga barwaaqe ee gacanta ku haya deegaanka soomaalida waqtigan xaaliga. dhanka kale ururka ONLF ayaa sidoo kale socdaal ku marayay deegaano badan oo ka mid ah deegaanka soomaalida, iyaguna sidoo kale ay ku raadinayeen in ay ku jiraan ama ay muujinayeen ololaha doorashada in ay diyaar u yihiin. dhanka iyo Soomaaliya haddaan u leexano, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Dani ayaa la sheegayaa inuu maanta ka soo hormuuqday telefishinka qaranka ama maamulka Puntland isagoo ka hadlaya arrimaha la xidhiidha weerarkii dhowaan lagula kacay xarunta xabsiga ee magaaladaasi Boosaaso, halkaasi oo ay kula wareegeen kooxaha argagixisadii ciidamo ama saraakiil kaga xidhnaa halkaasi oo loo haystay dembiyo ka dhan in amniyaadka dhinaca amniga. madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in gebi ahaanba duulaanka ciidamada al-shabaab ay kusoo qadeen halkaasi in lasoo afjaray. waxaa sidoo kale uu sheegay intooda badan in la laayay, in ka midana lasoo qabtay. waxa uu yidhi ma ay guulaysanayaan haddii ay isku dayaan in ay Puntland kusoo xadgudbaan. waxaana uu sheegay in ay difaacayaan xuquuqda dalka iyo dadka shacabka, halkaasina amnigooduna ay mas-uuliyad ka saaran tahay. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay madaxweynaha Puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay tahay musiibo haysata ummadda Soomaaliyeed in mar kasta lagu gumaado gudaha Soomaaliya oo ay gumaadaan kooxo xag jir ah oo argagixiso oo isku dayaya inay khalkhal geliyaan amniga. waxaa sidoo kale uu sheegay in duulaankani uusan mid ku salaysan Puntland oo kaliya uusan ahayn mid mar walba ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya sida caasimadda dalka looga taliyo ee Muqdisho. madaxweynaha ayaa sheegay in siyaasad xumo badani ay ka jirto dalka Soomaaliya, taasina ay u suurtagelinayso waqtigan xaaliga in kooxaha xagjirkii ay isku dayaan inay sii laba jibaaraan weerarada joogtada ay ku wadaan xarumaha dowladda. dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow, barnaamijkeennii ayaan intaa kusoo afmeeraynaa, balse waxaanu idinsii xusuusinaynaa in haddii ay baraalli ka noqdo aanu ku rajoweynahay barnaamij aanu ka diyaarinay dalka Turkiga iyo dalka Masar oo la xidhiidha arrimaha badda in aanu soo gelin doono janaalka saacado kooban kadib. waa anagoo bahda mareeg media oo idin leh ismaqal wanaagsan. wasalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.